السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قليلا سو دوادا qodobka labaad kama hadnaqa abaalka uu ninkaaga ku galo. Ninkaagu haddii abaal kuu galo ku dadaal inaad uga mahad celiso, iskana jir inaad ka abaal darto. Dumarku inta badan wanaagga uu ninkeedu u sameeyo way iska iloobaan oo kama shukr celiyaan. Arrintaasi waa mid khatarteeda leh, sida uu nebigu tilmaamay, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. nebigu wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, laa yanduru allah ilaa imra'atin laa tashkuru lizawjiha وهي لا تستغني عنه. عبد الله بن عمر waxaa laga wariyay inuu yiri rasuulka Alle, Ilaahay ma eego gabar aan ninkeed u mahad celin iyadoo aan ka marmayn. Gabadha muslimada ahay ogow in arrimaha ugu badan ee dumarka ay naarta ku galaan ay ka mid tahay inay ninkeeda wanaagiisa inkirto. Nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri, yaa macshara النساء تصدقوهن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. دمروا صدقاء ربحا وحان إذا أركي إن هذا دمرتين نارت أقوبدن تهينه. وحي هذين رسولك إلهيو محي أرنتا سكود عضي رسولك وحيري نعرض آيات بديسان نينكين وناقي سنوات إنكرتان وآتكو قالودان وهدي ولي وناقي ذين سمايو ومالين كالي حمانكو أركتان وحاتنادان ولي بخير كما أرك. هل كان وحان كوسو قدبنا يقصك ترجمي سارنتان. waxaa jiray boqor ka mid ah boqorada muslimiinta ee reer Andalus waa dalka maanta loo yaqaan Spain. wuxuu gaaraan xukumi jiray gobolka loo yaqaan Ashbilia. boqorka magaciisa waxaa la oran jiray Maxamed bin Ubaad. Maxamed isaga oo maalmaha ka mid ah la socda mid ka mid ah wasiiradiisa oo la oran jiray Ibn Amar oo ay socdaan webiga daafiisa oo ay sheekaysanayaan ayaa waxaa dhacday in dabayl soo kacday. kadib boqorkii ayaa gabay dabaysha ku saabsan tiriyay, laakiin wuxuu iloobay qaybtii kale ee beedka dhameystiraysay. saaxiibkii ayuu egay oo uu ka dalbaday inuu xusuusiyo qaybta dhiman. nasiib wanaag saaxiibkiina waa uu garan waayay. waxaa hadalkooda maqlaysay gabar jaariyada oo webiga dhinaciisa dhar ku dhaqanaysay. markaasay gabiga iyadoo dhammaystirtay. boqorkii gabadhii buu fiiriyay, bise waa gabar qurux Ilaahay siiyey oo haddana gabya ah. boqorkii wuu wareysay qoyska ay ka soo jeedo, waana loo sheegay. wuxuu dalbaday in gabadhii si dhaqso loogu keeno si uu u guursado. sida ayuu boqorkii gabadhii ku guursaday, wuxuuna jeclaaday jacayl aan qiyaas lahayn. wax kasta oo ay doontaan oo u samayn jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadhii waxay aragtay gabdho iibinaya caano oo dhoobada dhex socda oo xaynkana kor u qaadaya. gabadhii waxay xasuusatay waayo iyo wixii ay samayn jirtay. boqorkii bay ku tiri inaan sida gabdhaasi sameynayaan sameeyo ayaan doonayaa. boqorkii wuxuu amar ku bixiyay in guriga daaradiisa la ballaadhiyo oo loo sameeyo meelo barkada ah oo biyuhu fadhiistaan oo xaddi badan oo cadarka liira miskiga iyo kaafuurkana la soo iibiyo oo dhoobo laga dhigo. sidii baa loo sameeyey. kadib ayaa wuxuu ku yidhi, haddaba adiga iyo gabdhahaagu halkaa ku ciyaara. adduun waa war iyo sheekaha ka hadhee. waayihii baa isbedelay. boqorkiina waa la afgambiyey oo dowladda islaamka ee maqrib xukumaysay oo waqtiga la oran jiray muraabidiin ayaa xukunka ka qaaday. maxaa yeelay gaalada ayuu gargar weydiistay. kadib isaga iyo reerkiisii waa la qabtay, waxaana loo musaafiriyey maqrib oo ah waqooyiga Afrika. silsiladna lugaha ayaa lagaga xidhay. wax lacagahana looma ogolayn. gabdhihii iyo xaaskiisina magaalada ayay u xogta tagi jireen. habeenkii wixii ay soo helaan ayay kula soo laaban jireen hoygooda. maalin maalmaha ka mid ayay xaaskiisa isku dhaceen. markaasi waxay ku tiri, weligaba khayr kama arag. wuxuu ugu jawaabay, walaa yawmudiin, xitaa maalintii aan dhoomada kuu sameeyena. markuu arrinta xasuusiyey ayay naxday oo ay oyday. waxaa la sheegay muddo yar kadibna waxay la dhimatay cili murugo. isagana waxaa la sheegayaa inuu ka dambeeyey 3 bilood oo kaliya oo murugadeedii ayuu u dhintay. waxa aynu qisadan ka qaadanaynaa in dumarka ay wanaag kasta oo loo sameeyo iska iloobaan oo gabadhaas sida qisada aan ku soo qaadanay wax kasta oo ay jeclaato wuu u samayn jiray. heer uu gaaray in guriga dhexdiisa looga sameeyo barkado cadar iyo kaafuur ka samaysan si ay ugu dul ciyaarto. muddo kadib markii alla qadaray inay noqdaan dad faqaro ah, way ilowday wanaaggii oo waxay tidhi, weligayba khayr kama arag. isaguna waa xasuusiyey oo wuxuu ku yidhi, walaa yawmudiin, maalintii dhoomadana. marka gabadha muslimada ahay ku dadaal inaad wanaagga ninkaaga kuu falayo uga mahad celiso. haddii aad tiriso nuucooyinka Ilaahay ninkaaga ogi kugu siiyey ma soo koobi kartid. wuxuu kuu yahay wehel yahow, wuxuu ku siiyaa biil, wuxuu kuu iibiyaa ardbeel, wuxuu kuu dhigaa guri aad ku asturan tahay, wuxuu Ilaahay kaa siiyey carruur. adiga oo waxaas dhan haysta
ayaa haddana haddii aad maalin wax yar ka dareento aad iloobaysaa waxaas oo dhan, markaasaad leedahay weligeyba khayr kama arag. walaasha muslimadda ahay, ilaahay ka baq oo nimcada ilaahay ku siiyey ha ku kufrin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. haddii aad shukridaan waa idin siyaadin, haddii aad nimcadeeda ku gaalowdaanna cadaabkayga wuu kulul yahay. walaashada muslimadda ahay, haddii nimcada aad haysato aad ku shukrin weydo, waxaad halis ugu jirtaa inuu ilaahay kaa qaado. imise dumar ah ayaa markay nimcada ilaahay siiya ku shukrin waayeen ilaahay ka qaaday, oo haddii aad dhinacyadaada eegto aad ogaan kartaa. marka walaashada muslimadda ahay, ku dadaal shukriga nimcada oo ninkaadu ka mid yahay. adduunyada ha eegin cidda kaa fiican, sida kuwa kaa lacag badan, kuwa kaa guri fiican, waxaad eegtaa kuwa kaa hooseeya. nebigu wuxuu yidhi, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee: unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fahuwa ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allaahi calaykum. eega cidda idinka hooseysa, ha eeginina cidda idinka sarraysa. marka aad sidaa yeeshaan, nimcada ilaahay idin siiye ma xaqiri doontaane. marka aad wanaagga ninkaaga uga mahad celiso, waxaad ninkaaga dareensiisay inaad tahay qof abaal loo geli karo, taasi oo had iyo jeer ku dadaali doono inuu markasta wanaag kuu sameeyo. haddiise aad inkirto, taasi waxay sabab u noqonaysaa in ninkaada uu niyad jabo. ogaadana inaad tahay qof aan u qalmin wanaag iyo ixsaanba.